bismillaahi raxmaani raxiim kusoo dhowaada daawadayaal meel weliba aad joogtaan qaybtii labaad ee dagaalkii ciraaq iyo iiraan bishii sebteembar 22keedii sanadkii 1980 ayaa labada dal waa ciraaq iyo iiraane waxaa xuduudka kala qaybiya ku dhex maray dagaal qaraar oo aan joogsi lahayn kaasi oo salka ku hayay muran xuduudeed oo ay ku muransanayeen biyo mareenka shaadul carab dagaalka waxaa bilaabay Saddam Hussein oo taageero military iyo dhaqaalaba ka helayay midowgii Soofiyeedka iyo dalka Mareykanka labadooda kuwaasi oo aan doonaynin inay arkaan kacaan islaami ah oo ka bilowda mandaqada bariga dhexe iyo dunida islaamka maalmihii dagaalku bilowday waxaa labada ciidan ee labada dhinac isdhaafsadeen dagaal xoogan oo dhinaca dhulka ah ciidamada Ciraaq waxay raxan gantaalaha ah oo aan joogsi lahayn ku ganeen dekedaha waddanka Iiraan iyo dhulka saliida iyo bansiinka ku qaniga ah ee Iiraan waa gobolka Carbeed ee loo yaqaano Khuzestan waxa ciidamada dhulka ee Ciraaq ay heleen guulo badan oo ay ka gaareen dhinaca dhulka iyaga oo hore ugu ruuqaansaday xuduudka baaxadda weyn ee labada dal kala qaybiya balse ciidamada Iiraan waxay abaabuleen inay isku biimeeyaan cutubiyada dagaal ee dhulka ee dalka Ciraaq iyaga oo miinooyin isku soo rakibayay iskuna dhex qarxinayay iyaga oo biimays ah oo human wave shil wax loo yaqaan ah taasi waxay khasaaro lixaad leh u geysatay ciidamada waddanka Ciraaq ee guulaha dhuleed helay waxaanay ku qasabtay inay dib u soo gurtaan sanadkii 1982 laba sano kadib dagaalka labada dal markii uu bilowday ayaa Saddam Hussein wuxuu dejiyay nidaam kale oo uu ku doonayay in dagaalka labada dal ku joogsado Iiraan lafteedu waxay qabtay dareen ah in ay faraha la gashay dagaal qaraar oo aan maskaxdoodu weligood ka bixi doonin kaasi oo labada dhinacba ay geyseen fulxumooyin dagaal intii uu dagaalka labada dal socday ciidamada Ciraaq waxay u adeegsadeen ciidamada Iiraaniyiinta iyo waliba Kurdiyiinta kacdoonka waday hubka khatarta ah ee chemical weapons bishii Maaje 16keedii sanadkii 1988 ciidamada Ciraaq oo doonayay inay tirtiraan ama dhulka dhigaan shacabka Kurdiyiinta oo kacdoon sameeyay ayaa waxa iskaga hor yimid kumanaan qof oo mudaharaadayay magaalada Halabja iyo ciidamada waddanka Ciraaq kadibna ciidamada Ciraaq waxay u adeegsadeen maadooyin ka samaysan sunta chemicalka ah iyo waliba sun ka samaysan kuwa neerfaha bini'aadamka waxyeela oo loo yaqaano chemical and nerve danger poisons waxaana halkaasi ku nafwaayay dad tiradooda lagu qiyaasay 5,000 oo qof oo Kurdiyiin ahaa oo isugu jiray maati caruur iyo dad aan waxba galabsan inkasta oo dhimashada dadkaasi la sheego mararka qaarkood in la bunbuuniyay sidoo kalena la sheego in suntan ay ku dhinteen aan la garan karin meel ay ka timid iyadoo waqtigaasi dagaal culus u dhaxeeyay labada dal ee Ciraaq iyo Iiraan xiisada dagaal ayaa sii fogaatay Saddam Hussein wuxuu garaacay albaabada dalalka Carbeed isaga oo ka raadsanayay taageero dhaqaale iyo mid diblomaasiyadeed si uu xukunka ugu xayoobiyo Ayatullaahiga Tehran jooga ee Iiraan sidoo kale taliskii Tehran ee Ayatullaahi Khomeini wuxuu ku adkaystay inuu doonayo inuu diirka ka saaro fikradaha qalafsan ee Saddam Hussein ee ka dhanka ah in kacaanka islaamku ku fido gudaha dalka Ciraaq waa kacaanka shiicadu waxaanu Khomeini sanadkii 1988 ku gacan sayday xabad joojin uu dalka Faransiisku u soo bandhigay labada dhinac dabayaaqadii 80meeyadii ayaa labada dal waxay joojiyeen dagaalkii 8 sano jirsaday waxaana lagu qiyaasay inay ku nafwaayeen dad tiradooda lagu qiyaasay 1.7 milyan oo qof oo labada dhinacba ah sidoo kale waxaa ku burburay hanti dhan 80 bilyan oo dollarka Mareykanka ah amaah badan oo Saddam Hussein ka qaatay dalka Mareykanka maamulkii Reagan ee waagaasi ayaa wuxuu isbiday Saddam inuu yahay nin aan la ceejin karin oo ah geesiga Carbeed ee sahli kara
in uu dib u soo celiyo wax kasta oo dad carabeed laga qaato ama ay sheeganayaan. sidoo kale Saddam kuma ekeen amaahda uu ka qaadanayay dalka Mareykanka. wuxuu amaah badan ka soo qaatay wadamo badan oo carabeed oo saliida qani ku ahaa sida Kuwait iyo Saudi Arabia. kadib dhamaadkii dagaalka qaraadha ee Iran iyo Ciraaq, Saddam Hussein wuxuu mar kale carabtii ka dalbaday amaah lacageed oo tiro badan si uu dib u dhis ugu sameeyo dalkii uga burburay dagaalka. intaas ayaynu kusoo gabagabaynaynaa dagaalkii Ciraaq iyo Iran. intaynu warbixino kale kaga kulmayno sida iyo amaana Allah. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.